kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan iyo waqti walba aad daawaneysaan warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa arrimaheena oo ah YouTuber caan ah iyo qisada jacayl ee ka dhaxaysa isaga iyo Cayuuni Qurux oo iyaduna ah gabadh TikTok ka caan ah balse inta aynaan u gudagelin halkani waa Siis Official fadlan haddii aad ka cusub tahay taaba calaamadda subscribe-ta si aad uga mid noqoto asxaabta ku taxan muddooyinka dambe waxa caado noqotay inay dadka caanka ahi xiriir sameeyaan YouTuber ha ahaado ama fanaan ha ahaado haddaba daawadayaal arrimaheena waa wiil YouTuber ah waana mid ka mid ah YouTuberiska loogu jecel yahay Malaysia iyo guud ahaan caalamka sidoo kale anigoo team Siis Official ahna waxaan hambalyo u diraynaa inuu gaaray 300 oo ka subscribe haddaba daawadayaal gabadha TikTok caanka ka ah uguna haysata Cayuuni waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho ayadoo ilaa hadda joogta balwadeeda ugu weyn waa aaladda TikTok oo ay farabaas ku hayso runtii waa gabadh qurxoon oo asturan oo alla ku manaystay qurux marka loo eego Soomaalida kale waxay kaga fiican tahay dhanka TikTok waxay leedahay jinniyada iyo khaama cajiiba waxaana la odhan karaa waa the best TikToker of Somali aan u soo daadago intaan u socdayba gabadhan waxay muddooyinkii dambe heshiis ahaayeen arrimaheena oo ah YouTuber caan ah marba marka ka dambaysa waa ay isu soo dhawaanayeen iyagoo faraxsan misna dhoola cadeynaya walow aanay isku dal joogin arrimaheena oo jooga Malaysia iyadoo joogta Soomaaliya haddana mar walba waxay iskala hadlayeen Instagram-ka si ay u dhisaan jacayl adag oo muddo dheer isnaan kara haddaba daawadayaal xaqiiqada dhabta ma cadeyn karno balse arrimaheena ayaa bartiisa TikTok soo dhigay sawirkiisa iyo sawirkeeda waxaana uu ku soo qoray korkaadii saaran tahay kollay wax walba way noqon kartaa balse ugu dambeynta dhahooda waxa laga dareemayaa ilmo caashaq daawadayaal mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu u hambalyeynaa YouTuberka arrimaheena inuu gaaray 300,000 oo subscribe waxaanu leenahay keep going walaal allaha ku sharfo hore u soco waxaanu ku rajaynaynaa intaasi in ka badan sidoo kale daawadayaal halkan waxaan fariin uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka taxadiraan xanuunka adduunka saameeyay COVID-19 ama coronavirus kaasoo muddooyinka u dambeeyay ama 5 bilood oo u dambeeyay adduunka ku hayay farabaas walaalayaal ilaahay ayaa wax ilaaliya balse waxa muhiim ah in la qaato amarada iyo shuruucaha ay soo saareen dhaqaatiirta ku xeel dheer caafimaadka ilaahay hayna ilaaliyo dhammaanteenba waxaan idin rajaynayaa khayr sidaas iyo nabadgelyo أول مرة الأذان في برلين الناس كلها تتطلع الشرطة قاعدة بتنظم الأمور لأنه الناس انجنت صراحة الواحد مشتاق لهذا الموضوع بشكل مش طبيعي فعلا الواحد مشتاق سبحان الله الله أكبر الله أكبر